markas waxa ii ka soo jiidaya macaan ma aha dareen jinsi ee waxa i soo jiidaya waa astaan gaar ah oo qalbiga ka timaada taas oo wadata dareenkeeda gaarka ah waxaana loo qaadaa dareenkaas ruux lagu qancay sida adiga oo kale haddaad iga weyso agtaada ama taleefankayga damo hawalwalin xabiibti ee aayar fiiri fariimahayga waxaana arkaysaa inaan kula joogo waxaa iga go'an macaan inaan kula wadaago dhammaan murugadaada ilintana kaa tiro weligayna aan ku jeclaado jaceylka aan ku qabo gacaliso wuxuu jiri doonaa ilaa qoraxda ka soo baxdo galbeed dhulkana la rago markasta qurux laga hadlo adiga ayaan ku soo xasuustaa markasta oo macaan laga hadlo adiga ayaan ka fikiraa iyo markasta oo jecel la soo hadal qaadana adiga ayaan qalbiga ku qabtaa maxaa yeelay wax kasta adiga iga istaahila boqoradayda waxaa tahay wehelka kaliya qalbiga uu ku qancay taas waa sababta aan kaaga doortay dhowr bilyan iyo milyan dumar dhexdood waxaan kuu soo hibeeyay shayga ugu qiimaha badan ee ruux la jecel yahay loo hibeeyo waana qalbiga waxaana kaa rajaynayaa inaad dhowri doonto waayo waa nafteeda markasta oo halbowlaha i dhaqaaqo ama shucuur ka dareemo waxaan dhab ahaan xaqiiqsanayaa in aad hareerahayga joogto ogow xabiibtii jirkaan adiga keliga ayuu u dhaqaaqayaa markaan ku dhex jiro laabtaada waxaan dareemaa ammaan farxad deganaan iyo jacayl ee ii ogolow xabiibtii inaan abidkii ku dhex noolaado